Asalaamu calaykum dhawaada Apple waxay soo bandhigtay horumaro waaweyn oo ah AI. Shirkii WWDC ee 2026 Apple waxay ku dhawaaqday horumaro muhiim ah oo la xiriira sirdoonka macmalka ee AI loo yaqaano. Siri cusub oo ku shaqeysa AI ayaa awood u leh inay fahanto sawirada, jadwalka ama kalendarka taqaanidba, fariimaha iyo macluumaadka ku jira qalabkaaga sida telefoonada iyo wixii lamid ah. Siri sidoo kale waxay qaban kartaa howlo kala duwan oo telefoonkaaga iyadoo la adeegsanayo amaro cod ah. Shortcuts oo cusub ayaa lagu abuuri karaa iyadoo la adeegsanayo luqad caadi ah ama plain text iyadoo aan loo baahnayn dejin adag. Waxaa lagu daray qalab cusub oo wax ka bedela sawirada sida dib u habeynta iyo hagaajinta muuqaalka sawirada. Modelooyinka AI-ga ee Apple waxaa la sheegay in lagu horumarinayo iskaashi la leh tiknoolajiyada oo loo yaqaano Gemini ee Google. Iyadoo Apple ay xooga saareyso ilaalinta asturnaanta iyo xogta isticmaalayaasha ayay hawshaasi qabanaysaa. Qaar ka mid ah astaamaha cusub ayaa si dambe loogu sii deyn doonaa dadka isticmaala ee ku nool Midowga Yurub. Aad mahadsantihiin. Intaasna waxay ahayd isbuucii hore iyo wixii kasoo kordhay tiknoolajiyada, gaar ahaan shirkadda Apple horumaradii waaweynaa ee soo bandhigtay shirkii WWDC ee 2026. intaas qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa oo Siri cusub oo ka shaqeeya AI-ga ayaa awood u yeelatay inay fahanto sawirada, jadwalka, kalendarka. Waayadii hore saas awoodeeda maskaxeed uma sii fiicnayn. Marka fariimaha iyo macluumaadka ku jira qalabkaaga sida kombiyuutarkaaga iyo telefoonkaaga u muhiimsan ayay awood u leedahay inay kala fahanto. Marka Siri waxay qaban kartaa howlo kala duwan oo telefoonkaaga iyadoo loo adeegsanayo amaro cod ah ugu amrayo. Shortcuts cusub ayaa sidoo kale laga abuuri karaa iyadoo la adeegsanayo luqad caadi ah ama plain English marka iyadoo aan loo baahnayn dejin adag. Waxaa lagu daray qalab cusub oo wax ka bedela sawirada sida habeynta iyo hagaajinta muuqaalada sawirada iyo tayadooda haddii wax laga bedeli lahaaba. Maadooyinka AI-ga Apple waxaa la sheegay in lagu horumarinayo iskaashi la leh tiknoolajiyada Gemini ee Google iska leh, iyadoo Apple ay xooga saareyso ilaalinta asturnaanta iyo xogta isticmaalayaasha oo laga xadgudbeynin. Qaar ka mid ah astaamaha cusub ayaa si dambe loogu sii deyn doonaa wadamada Yurub, taasi koley Afrika iyo inta kale wadamada iyo Mareykanka meelahaasina koley dib dambe ayay sii gaari doontaa. Aad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.